mudana madaxweyne waxaanu maqlaynay oo burco ka dhacday gobolka ragga jinni ninkii keenaa bixiya gobolka naagu waayo reer ceelgaabow gobolka naagu waayo ma garanaysaan iyagaa sheegi doona burcaa sheegi gobolka naaga annagu garan mayno annagu gobolkaanu ku soo sheegnay madaxweyne gobolkii macdanta gobolkii dahabka gobolkii badda gobolkii awowayaasha gobolkii ayeeyooyinka waxaa soomaaliya ku hadlaa intii ugu badnayd halkan ay ka tabiirantay oo ku dhalatay waxaanu leenahay madaxweyne annagu dumarka iyaga iyo ragga iyaguba hooyooyinkaaba qiimo badan hooyooyinkaana ku soo dhawaynaya hooyooyinka ku soo dhawow gobolkoodii iyo raggoodiiba mudana madaxweyne kelmadaasi reer ceelgaabo waa fahmi waayeen laakiin waxaan leeyahay gobollada mar haddaanu nahay gobolkii ardal ashdaad gobolkii awowayaasha gobolkii ayooyooyinka xaal baanu ka siinay waa fahmi weynay gobolka ragga waanu gara weyn arrintaa xaal baanu ka bixinay xaqna waanu leenahay ku darso madaxweyne maanta ceelgaabo mudane madaxweyne indhaagaa ku maqalina waad aragtaa reer ceelgaabo muxibada iyo soo dhowaynta barakaysan ay yar iyo weyn u soo banbaxeen oo ilaa xalay u taagnaayeen weliba shalayna ay moodayeen inaad imanayso oo shalayna ay baxeen maantana maalintii labaad ay baxeen mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay tima caddaan wuxuu yidhi berigii juuje ninkii la odhan jiray ayaa odhan jiray waqooyiga dad la joogo markaa si weyne waxaa geliyey tima cadde kala baydh buu yimi wasiirkii juuje wuxuu yidhi wasiirkii daakhiligow waalidiina dulmaayay oo dalka geesta waqooyi dad la joogo lahay maanta daadma ku qaaday mudane madaxweyne miyaa nabad ku haystaa wanka miyaa nabad ku haystaa maanta waa maya wanku waa innaga reer ceelgaabo waa ismuujiseen aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu